marwal baan deena hawleedii waa ku xisaabtamaya ama waqti dambe iska yahay laakiin bal waxaan doonayaa in gabagabadu inay noqoto hawraar yar oo kooban oo aad hadii ka dhigo maaragtay ku dhaqdhaqdaan hadalkii dheeraayaan halkan ka soo jeediyay ma intaanan oran horta gabaygii aan ku bilaabay waxaan uga jeeday wuxuu ahaa 150 bayt buu ahaayo 150 ka bid intay aqoon xambaarsantahay hadii imka qal la siyaado bilaabo oo macneeya qiyaamuhu wuxuu dhacayaa iyada oo aan la dhamayn been sheegi maayo hada walle hadii imka la bilaabo 150 ka la yiraahdo aynu qallo been ma aha qiyaamuhu wuxuu dhacayaa iyada oo aan far aanay fay ka qodnayn marka lagu leeyahay suugaad macnaha ay ku fadhido ururinta aqoonta ilaalinta aqoonta ururinteeda koobideeda si loo xafido loo hayo kulliba ma hadii dadka sharaf kale ka soo qayb galay waanigii horeysiyay halkan bidixdeeda waxa fadhiya in la yiraahdo Yuusuf Cismaan waa ragga la wareegaya xilka gabayga hadii laga helo ragga 40 sanadood sidii u hayay inay ka baydaan kulliba anigu inta la leeyahay naga dhaqaaq noo bandhe ayaan ka mid ahay laakiin waxa leeyahay xagaan u dhaqaaqa meel walba waa la fadhiyaa waa la haystaa anigoo idoo mid ay ku dul tuura mooyaan meel banaan oo aan u leexdo aan ku dhacaya ma jirto haddana in wadada sidii marar badan ba aan golayaal uga idhi xilligu wuxuu ku fiicay cid walba inaanay hibooyinku kullumin magaca weyn isku gudbin ee waqtigiisii qaatay magaca weyn oo hebel la yiraahdo ayaa ku gudban nin waliba 60kii intii ka horeysa halku yuurursaday ayuu soo fadhiyay kuleeyay la igu iman maayo haddaan la isu banayn oo aanay laansaar noqon oo nin waliba inta dardarta iyo xiisaa u hayo iyo caafimaadka intuu lagu jecel yahay aanu ka leexan aakhirka ceeb buu uga dhacaya qof kasta baa ma aha suugaanta qura iyo gabayga siyaasadda kamida kana kamida heesta kamida xagna kamida mid walba inta aad macnaha ku leedahay ila bartii uun garaaci maysido macna sameyn mayse fig meel baad leedahay wax la yiraahdo climax haddaad gaadho oo aad banayn weydo ama waxa lagu sheegay hoos u dhaadhacdo habeen dambana way ku jirtaa ama inaad halkaas uun garaacdo marka intay macnaha sameynayso ay dadku kugu jecel yihiin aanad sii faganay wuxuu yiri hada la sii dhehbaa dilay hada allah sii dhehbaa dilay waa inaad banaysaa daabaa jirta xanuun baa jira xiisa dhac baa jira xil kale oo ku sugaya jira inaad taariikhdu bagabeeyo waxa ka khayroon inaad si anna waxaan doonayaa inaan nasto si aan u nastana iska dhaqaaqi maayo waa inaan cid xilka ku wareejiyo cid aan ku wareejinayna waa inaan dadka hor keena waa inaan wixii aan ku dheerahay ama aan way aragnimo dheerahay ku kordhiyaa waa inaan dhisaa waa inaan wax ku biiriyaa waa inaan dadka hor keena waa inaan dadku bartaan tabadna aan ka baydhaa oo ayna xilka la wareegaan aniguna aan ka nasto gabaygi iska daayo mid kale oo loo dalaca jirto oo had iyo goor maaragtay noloshu waa promotion ka sheegayay tu muhiim oo kale aan u gudbo hadii ilaahay ka dhigo marka Yuusuf Cismaan baa leeyahay ninkani waa ragga gabayga hadii ilaahay ka dhigo dhaxlaya habeen dambe habeenada kamid ah waxa la idin hor keenaya magaalada Hargeysa ragga joogay gabyaaga ee dhalinyarada ah ilaa 5 ilaa 6 ilaa 7 nin oo gabyaa oo aan waxba يعني دليل كل هاين هالكي جوجان لكن روتي مقعدة واويني أي كوجد بيجين سيدي لندن بقى كسمية يعني لحد اللي يرى أسوأ فريسية ودورية لبعث الجراء دتك يعني مرتقات وقفدية يعني سوء فريستان يعني سيدا وقشكية يعني أنا وقبي تريي ليرود هو اللي يلاهدو مركز كبحي بهذا بقى يجانا دقيست رجع مقعدة كوجد بيجين هنا تاتي أدي إسرائيل إيران هي سوديبا بدها العان كهسا وحاول سياسة سمية هدانو هبة لهين ملاها اللي إيجي ما يقفك إيا مقع اللي إيجي أيان درهد أوين إينا هايستانا دينا كستون رشعة تاوي marka deegaanku ma ogoli in uu qofkaasi ku dhinto oo hibooyinku ku dhintaan magacayga weyn uu sida ugu gudbanaado anigoo imika isagu waqtiga leeyahay waqtigiisa soo qatayna kiisana ka hor joogsado isaga gudan karaya ma gudan karaya anigu yahay horta sidaas fiican cid walbana saasun baan faraya qaybaha noloshu leedahay وأنا إنتي لحدن كي هست بيرود أوران ولي وان هيسية وكي كبيه أوران كتعي مايو وان كبيه وسياسي أوران لا يجو إيمان مايو
waxaasoo dhammi waa ayaan darooyinka jira laakiin tani anigu kaalintaasaan taagnahay taasaa igu ogaanaysaan gabaygan anuba hooyadaaya waxaa ka horreysay hooyay la'aanta waxay ku saabsanayd hooyo waajibkeedii gudatay oo ubadkii ay dhashayna kadib markay iyadu waajibkeedii gudatay iyaguna ay abaalkii celiyeen hooyo iyo aabbe labadaba way marayaan meesha oo kab inankii wuxuu kaa heesayay hooyay la'aanta ama inaan ha noqdo ama inaan ha noqdee wuxuu ka mahad celinayaa dhibtii laga soo maray iyo daryeelkii iyo dadaalkii iyo hawshii iyo tacabkii buu ka mahad celinayaa dee midhaha waa haystaan hooyo la'aanta laakiin tani waa opposite-ka waa ubadkaa la koriyey rag iyo dumar mid kastaba ha noqdee ee maalintii heesaha loo dhammeeyey ee tacabkiisii dhammaaday ee ay ahayd markaa inuu noqdo weel wax lagu shubto inuu noqdo hangool iyo gudin nolosha lagu ooto iska dhaqaaqay mar walba inta fiican ee rag iyo dumarii ee xaqaa gudday kuma jirto waanay jiraan mar walba gabaygu ama dhaliishu ama canaantu si loo yidhaahdaba hadal iyo hawraar mar walba waxay u socotaa cidda leh ummaddu dee raganimona kama sinna iyo waajib gudasho iyo garasho waajib dee doqoniino iyo haddii ay ka dhigo iyo wadeeco iyo wantatacana kama sinne mar walba dhaliishu goob kastoo la joogo iyo geed kastoo la joogo waxay u socotaa inta leh rag iyo dumar taas sidaa loo ogaado marka tani waa hooyo inamay dhashay maana alifinoo hawada kamaan tirin oo mala awaal maaha ceelka lana la yidhaahdaan joogi hooyayna ma dhashay london bay la joogaan may dhiman ma dheeraan qalbigu iyagii buu weydiinayaa jawaab bay u weyday qalbiga ay u sheegto iyadoo ama iska jiifta ama weel iska yar xalanayso qalbigii marba inamadaadii kaasi marba boodaysa warkooda way haysaa dadku way weydiiyaan inamadaadii maye ma arkin ma odhan karto oo taasi way ka xishoonaysa inay taado ima yimaadaan oo ma arko waxay kaga warrantana garan mayso marar badan habeeno badan hurdadu yani habeenku waagu wuxuu bariyaa iyadoo aan seexan godkeeda biyo ugu galeen waa sodohdii asalka ahayda xishood leh dhaqan leh hadalku aanu ku fiicnayn yaan lagu maqlin ku guntan oo ku tuntunsatay meelay u dhaaftaa aanay jirin oo wakhtiga ka warsugayso habeen oo dhan salaatileil iyo duco ayay ku jirtaa mar walba waqtigu soo taraayo arrintu way sii fogaanaysaa mar walba xanuunku way sii badanayaa su'aashii qalbigu way sii badanaysaa jawaabna uma hayso way sii gaboobaysaa way sii taagdaraynaysaa inamadiina hareeraheedii joogaan inay halkay ku maqan yihiin iyo tumashadooda iyo guryo kale inay samaysteen iyo hablo inay haddii ay ka dhigo caynkaas iyo caynkaas oo la isla lumayo ayay ogtahay ma hadashaa may habeenkii dambe waxay goosatay inay hadasho hadal bay tidhi kow in aad satisfaction wax la yiraahdo in qalbigaaga uu aamuso aad inta ku samriso qofku itaal kale markuu waayo had iyo goor maasado ama gabaygu waxyaaba uu leeyahay waa la isku baqtiyaa markaad caraysan tahay aad seexan weydo haddii aad waxa aad ka seexan weyday hal u haysato hawraar u haysato ama agtaada radio furato nin tirinaya mushkiladaadii ka hadlaya waad seexanaysaa waa relief wax la yiraahdo waa la isku baqtiyaa waa la isku qaboojiyaa tabeedna waxay tiri hadalo aad culaysku ha kaa yaraado koow hadalo ha gaadho hadalkaagu dadka oo waa mujtamacu ciyaar maaha baaqaaga iyo dhibtaada waa la gaadhsiiyaa iyagaa dadka u hiiliya dulmane dadka gaadhsii ha la isweydiiyo dadka inamada laga hadlaya waa kuwama ha la isu sheego isha ha lagu gubo ixtiraam ka hadlumiyaan farta ha la isugu fiiqo tabeedna meel ay galaan hawaayo marka la yiraahdo wariya kan halkeena marmara ee isqaadqaadaas miyaan ahayn ka hooyadii sidaa tahay halka fadhida ee ku dayacan tahay gabaygan ay tirisay miyaan ahayn maalintaas uu geed u galo waaye farta la isugu fiiqay hatta gabadhan ay isla lumeen iyada qudheeda la colaadinaya tabeedna marka tuu meel galay waayo waxa ku qasban yahay inuu isagoo soconaya inuu yimaado la yiraahdo wariya heesaa loo tirinaya gabayaa loo tirinaya isaga qudhiisa iyo meeshuu ku mashkaladaysan iyo waxaan oo dhan waxaas waa hiilka mujtamaca qofku inuu sidaa markuu ugu gudbiyo dadka mashkaladiisa xaq ah
si uu hiilo helo waatan arintu dabeedna arintii bay habeenkii dambe oo ka qaatay si hufan oo islaamnimo ku jirto dhaqan suubani ku jiro hooyanimo ku jirto xishood ku jiro sodohnimo ku jirto afkubaadsiya ayay ku halaan hashay ama ay ku calaacashay hoga tusaale waa maasooyinkani waa kuwa leeyada hoga tusaalaha inta siyooday marba si ugu dhigaysay wax ku tusayso ilaa iyadu maaragtay intaasay aamusnaydo intaas hoosta cabaa soo marto hadalkay odhanaysaa waa mid culus islaam waxaa laga hayaa inay inamo badan dhashado midna macna yeelan waayo markii hore waxay u wada bixisay libaax iyo guuleed iyo liibaan iyo sidan iyo sidan sidaas bay u dhaqaaqeenoo maalintii dambe fulaxantii ma mooge dariska iyo darisyada iyo islaamaha ficilku ka dhaxeeyo way og yihiin inamadii ay magacyada u bixisayeen waxba ka jirin maalintii dambe iska badheedho islaam dumarkii oo meel fadhiyo timo waxay tiri tib dhalay oo mooye dhalay iska sii muuqda dhalay soo muuqda dhalay madalooti dhalay gobla wiila lagu falaanahay bay tiri baladeeg hadda magacyada ay u bixisay kooy markii dambe runtoodii la baxday waa tib waa mooye iska qof sii muuqda waxba la sii muuqan qof soo socda waxba la soo socon madalootiguna waa qorigan habeenkii xirada laga dhex taago wadaanta lagu foorariyay bahalku hamooda qof ayaa madalooti la yidhaahdaa gobla wiila lagu falay baanahay taasina waa mid sheeko hindiyaa jirto la odhanayo inan baa ina jeclaadayoo markaasay tidhi bal raganimadiisay tijaabinaysayoo waxay ku tidhi mayaadi jeceshay haa shardi baan kugu xidhayaa ee ma fulinaysa waxaa laala waxaad igu xidho waa fulinayaa buu yidhi hooyadaa wadnaheeda ii keen bay ku tidhi dee ninkii madalooti intuu iska soo dhaqaaqay ayuu hooyadii u yimi oo yidhi hooyay gabadh baan jeclahayoo dee wadnahaaga igu xidhay maxaa tala ah oo heedhe haddaan wadnaha ku siiyo ma ku yeelaysaa bay ku tidhi haa buu yidhi goosay tidhi midibuu soo qaato islaantiibuu wadnihii ka goostay inuu iska dhimatayoo wadnihii uu sido ayuu la soo orday siduu la ordayey ayuu kufay wadnihiiba halkaasoo kale ku dhacay wadnihiiba hadloo yidhi hooyo wax ma ku gaadheen kacyo boorkii iska tuuyo gabadhii buu yidhi iga qabo waa kan waxay waarood naga tag ilaa inaan macna lahayn ninka hooyadii wadnihii hooyadii sitaa dee waayo gabadha yeelaysaa halkiiba hooyadiina ku seegay tii kalena ku seegay marka islaantu ka hadli mayso hunguri iyo halka wax la mariyo allah qoray dadku wixii lahayaa la wadaagaa waxay ka hadlaysaa qalbigan wadna hilbahan kala maqan ee nusna iyada yahay nuskii kalena ka maqan yahay ayaa nuskan iyada qalbiga nuskan ku yaala nuskii ka maqnaa raadinaya hilba kala maqan weeyo istoonayo lama aamusin karo inay soo horjoogsadaan iyo ilwaadsiga iyo ku ildoogsiga intanu baa dawo u ah guri ugu dudi mayso kabayguna kuma salaysna ilaa aragtunba u dawaa intanu kaliya dabeedna sidan ay u bilowday waa boqol baydo haddii intaa hore sidaa loo sharxo malayn maayo inay faahfaahin u baahan tahay dadkana kolley waxbaa loo hambeeyaa oo dadkuna qaybtiisa uu iska leeyo weynaka caawa dhan ka sheekeyn in bahasha la wadaago anna aan yidhaahdo adna aad dabeeto furfuratid intani waa caynkan hunguri calaf baa xukuma hantina dhaqan baa shushuba dadkana hidihiisa guud wixii lahayaa dhex yaal anigu hunguriba u dudi maayo taa allah qorado ummaddu dhaqan bay u leedahay wax wada cunid oo hidihiisa guud wixii lahayaa dhex yaal laakiin maxaan ka hadlayaa xaqiyo u halbuuxintiisa habboonkiyo waalidtiisa hilbiyo ku arooridooda siduu uga hawl yaraysto halmaan laga yeeli maayo nimaad dhashay kuma dhalin wuxuu qoranayaa waan ku ilaaway inaad ama yani waxaan cudurdaar noqonayn buu inuu ku maqnaa ayuu sheegayaa iyaduna waa tan seexan weyday ee waxba cuni weyday isagana dhayal bay la tahay marka taan ka hadlayaa waa tan waa mid culusoo waa xaq waalid leeyahay oo xaq ilaahay marka laga yimaado ka labaada
حقية وهالبوحنتيسة هبونكية والدتيسة هلبية كأروري دودا سيدو أوغا حولي رايستو هالمال لغا يلي مايو هوية تمشي دشيد هلكو كو مغرابي شيكسا أما قبل كله هالنقطة أما تشاد هالنقطة أما وحكا بالوديسي وكو مغنا أي مركا أبهيريسا هوية تمشي دشيدا هوية تمشي دشيدا كداك عن هاتسكاك هايغا يران ubadkayga hooyada waxa hadlaysa marka hooyo dhab hadlaysa sida ku banaan ee xaaladaas haysato oo dhan ayaa ka baygani ka soo jeeda ma hooyada run ahay mid kasta oo xaaladaas haysato oo la ubadkeedii sida ay uga farabaxeen taasa way ku jirtaa barbaar hana qaad ku leexday duciya habar qaadan waaye ciriya heegu noqdaa haraysa dhulaan qooni hoygii maran wiilashiisa haween dumar baa ka sheegta hablaha kacay baa u yeedha haldaa jecel baa u qaybsan inaan lagu rogmadayo xaabo iyo dhuxul iyo caano iyo tan lagu soo koriyay ama inanba oo inaan cidla ka helo iskala dhaqaaqay ama inaan iskala dhaqaaqday oo gurigii ay iftiinkiya ilayska u noqon lahaayeen madow yahay oo qofkii ay ka farxin lahaayeen murugaysan yahay bal hada ka war ayuba sidaan u hadlayo hadalkan markaa waxay leedahay walee qof la koriyay oo markuu loo dhameeyay barbaar hanaqaad ku leexday iska dhaqaaqay duciya habar qaadan waay isku qaadan waay hooyadii ama aabihii ama labadaba iyo ducadooda intaas wax walba ka doorbidi waay ciriya heegu noqdaa haraysa dhulaan qoon waa cil ku daaya meelan garanay oo qofka gabadha ay uu halka ku soo ay isku shitaanay gogasha quruxda badan u dhigtay waxa dil wada ninkan ku soo galay kula jooga maxaa xirsadee mooyi waa mid hada ugu fiicad xirsa waa mid ilaahay soo sakhiray hadii kala xirsa waa mid meelaha ka yimid oo jiriyay soo xiyay baa aan garanay hada eegata waxa lagu abaal marinayo qofku marka uu wadada ka leexdo islaanta hooyana maxay sameeyay ma aabana tii salaadu tukada gacmuhu koru taagi lahaa oo markaas kalgacal gali lahaa markuu eegaba qaybkii buu ugu faari lahaa markaas uu ciil beeli lahaa halkuu u dhalay buu iskaga gufayn lahaa intana isagana badbaado adduunka badbaado u noqon lahayd tabeedna maxay tiri inaan hadlo maan jeclaysan bal hada afeefta inaan hadlo maan jeclaysan baxanaanana maan hor joogsan hubsiinana maan ilaawin hogeediya xaajadayda dareenka haloosigiisa hugiisa inaan ka qaado hayaan ka fogaaday baale yani iska hadli maayo fudayd hadli maayo hubsiina la'aan iga hadlin mayso laakiin hayaan ka fogaaday iyo ubadka iska dhaqaaqay ayaa inaan hadlo igu khasbay oo dadku maqlaan markan cid la hiil ka waayay naftayda halaan halkeeda waxaan huri waayay sheego ama calaacalkeeda illa aan ilaahay igu qaban markan cid iga hiilisa ka waayay aniga aqal madow noqotay naftayda halaan halkeeda waxaan huri waayay sheego waxaan shiri dadka gaarsii hal lagu la maqlo oo colaadoodu cadowgoodu habto hantii luulatay dhageyso waa cid ku saban qabta ama ninka jaadka ka iibinaya noqdo ama gabadha hadii ay ka dhigo xogaagiisa de u hadhay ha noqotee hantii luulatay dhageyso hoobaanta agtaada taala hadhiinadu baadi weeye hashii korisa u ciilan tabeeda waxay xusuusatay waalidku waa laba midun marka uu intiisa guto in abaalkii la celiyo oo marka ilaawo dhibtii iyo in la gudi waayo ay hor timaado wixii uu kula soo maray tabeedna imika waxa hor timi tacabkii ubadka ka soo maray tabeedna waa tan waxay tiri qofaad halab saaridiisa daryeelka horseedadiisa dadaalada heesihiisa habeenna ka seexan weyday ku meel maray heegantaada markuu hagar ku baneeyo daraarku haleeli waayo hortaada waxa yimaada sidaad ugu heelanayde haraadiyo waa kalkiisa waa xiladeedii aad guri lahayd hilaac baxayo dhageyso wuxuu isagii u yahay iyadoo haraadan hilaac meel halkaas waxda ka hayo aan gaari karayn hilaaciyo waa kalkiisa haraadiyo waa kalkiisa hilaac baxayo dhageyso siday tala kaaga hoostay calooshu intay ku hoysay hiyigu ku baxnaaninayay
horaadka intaad jaqaysay dhabtaydu intay ku haysay intaad huwanay taftayda hobayda intaan dusha kuugu heesay intaan hanad kuugu yeedhay hawraaraha kugu ammaanay intaan hubin kuu xambaaray dartaa u hoggaansanaaday hadhuubada aan ku siiyey habniin adigoo ku diiday intaan hamba kuu daboolay hamuun iyo gaajo qaatay adoo haqabeel ku seexday intaan hurdo kuu ilaaway ilaashay hareerahaaga hunga ay xusuusinaysa hayaydana meel shishaale hilowga nafta aloosan ay kalgacal bay haya boholyow hilowga nafta aloosan ka shaahinqanaysa goorba oo qalbigii hanka ay waraysanaya hankii ujeedadan ku dhalay ku haweenidaan ku hanweynaa ee aan ku hungoobay wax weydiinaysa hanka ay waraysanaya tarow hebel mee ku foogan mee hebel aniga hirashaa isweynay higsiga nolosha adkaaday adduun iyo haybsigiisa hangoolli'idaan ku daayey waxaan ku hagaagi waayey dhankaad ku hagaagsanayde adoo ka hanweyn xaggayga qofkuugu hanweyn dantiisa ciddaad ku hadlaysay mooye waa marka ay gurigii ay ku dhasheen iyo uskagii ay ku reebeen ka hawoodaan ay jeermiska iyo waxaa sheegaan ay gobol cad oo nadiifa ay doontaan ee wasaqdoodii ay diidaan halkii lagu meeray wasaqdo ilaa hararadan iyo gurigan iyo aqalkan iyo darbiyadan waxa wasaqda ku taala waa tiisi waa saxaradiisa siinkiisi weey ya markaasay imika waxay leedahay adoo ka hanweyn xaggayga qofkuugu hanweyn dantiisa anugu baadee anaa dantayda kuugu hanweyn oo kuu dhalay adigu daniga malida anaa dan kaale cid adigu hadlaysay teemooye halyeynimadaada sheelan habowgiiyo dhiirintiisa ayaan halis kuu tusayne intaan kugu hawla daalay intaan kugu hooda sheegtay intaan hebla kuugu faanay hilaado fog bay lahayde inaan hafarkaaga qaato sidaad ku heshaa daaweyne adiga habigaaga mooy waar inaan uunbay dhashay sidii islaantii aan ka sheekaynay uunbay dhashay kuma dhalin waar ujeedaan kuu dhalay oo kuugu tabcay oo kuugu soo jeeday oo kuu xambaarayay oo haddii ilaahay ka dhigo kuugu heesayay te inaan hafarkaaga qaato inaan uunbay dhashay oo hafara intaa inaad dhalmadu inay intaas qura noqoto ilaa habaare te yeeli maaye sidaa taa go'aankaa ku qaadatay adiga habigaaga mooyde waa adiga iyo garaadkaaga ay tahay adiga iyo garaadkaaga weeye haddana hooyadu bal hadda docda kale aynu iska taagno ninkii gooyey ee intaa ka soo martay ee aynu ka sheekaynay haddana waa tan aakhirka habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay xaggayga hibaan ku saaray anigu ku habaari maayo huq baasi ku raadinaysa waatan hooyadii waxay tihi habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay haddana inaad rag ugu horrayso ayuumaan haddana jeclay hooyo mooye cidtaad odhan kartaana waa laalayu jirin aabbuhu waabu dayriyaaye intaas aabka ciilbeel ka dhigtaaye ninkii odayga ahaa ee ogayd cidda haantiisii ku lulata haantii iyo tay u tolatay halka taallo oo haddii la ka dhigo maaragtay gidaaday baa leedahay haantii habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay xaggayga hibaan ku saaray xaggayga fasax baad ka tahay xaggayga hibaan ku saaray anigu ku habaari maayo oo kan dee ku odhan maayo laakiin kan iyadu ma xukunto anigu ku habaari maayo huq baasi ku raadinaysa qalbiga soo boodaya ayuun baan jirin meelaad ka gashaa uu ku daba socda xaq baa ku daba socda weeye daqiiqad kasta halis buu wallaahi ku sugan yahay qofka taa la dhaqaaqa qasaman billaahi qofkaasi waalidka sidaa uga dhaqaaqay xaq ee gudi waaya daqiiqad kasta meel kastuu marayo halis buu ku sugan yahay inuu dhulku la go'o hawaala adduun rabbaa og dadkuna kala hooda weeye hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadhow anuunbaa hooyadaa hoos iyo sare tii ku raacda anuunbaa hooyadaa ya meel kasta tag ama cirka tag ama dhulka tag waxaa doonta samee wallaanad hooyo kale u yeelanay hadday tala alla kugu timaado caawa inta lagu soo qaado ya ayaa dabeetana halkii aad ka hawatay ka dhaqaaqday saa lagu soo dhigaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.